fiidiyogankii ka horey su'aal badan ayaa ka imaadeen applicationada podcastada laga dhageysto iyo weliba podcast noocyo ah ayaan dhageystaa. Ana shaqsiyan waxaa isticmaalaa laba application oo kala ah Google Podcast iyo Podcast Player. Laakiin waxaa jirta arrin ay muhiim tahay inaad ogaatid ka hor intaadan podcast-iga dhageysan. Taasi oo ah inaad ogaatid levelkaaga luqadda Englishka. Haddaba si aad u ogaatid levelkaaga waxaa jira imtixaanaad free ah oo laga helo Google-ka. imtixaanaadkaas gal kadib waxaa ogaanaysaa levelka aad tahay and based on your level waxaa raadisaa podcast markaas adiga kugu habboon. Dadka bilowga waxaan u soo jeedinayaa podcast-yadan inay ka bilaabaan. Waxay ku hadlaan luqad basiid ah sidoo kaleeteed waxay u hadlaan si tartiib ah si loo fahmo. ESL, English as a Second Language, Plain English iyo All Ears English. Applicationada aad ka samayn kartid practice-kan waa HelloTalk iyo Free for Talk. HelloTalk waxaa ka helaysaa Play Store-ka, halka Free for Talk uu leeyahay website. Mobilada Android-kan waxay soo degsan karaan application. Meeshaas waxaa iskugu imaada dad baranaya luqadda Englishka adigoo kale marka ha cabsanin hana xishoonin. Kaliya ma luqadda Englishka websiteskaas waxaad ku practican kartaa luqado fara badan oo kala duwan sida Carabiga, Turkiga iyo Isbaanishka. Video-kan xig waxaan idin wadaagi doonaa websites-ka aad akhris ka samayn kartaan. Ha ilmaamin inaad video-ga like garaysid page-ka aad follow dhahdid. See you in my next video. Bye.